I guess because it was my first film, but I didn't know it. But uma haysan in dadka Soomaalida ay yaqaanaan balwaan, balse waa filimkaygii ugu horreeyay ee aan sameeyay. aad baan ugu faraxsanahay in weli la igu xasuusto filimkaasi. waxaan filayaa in filim soo saaraha uu ahaa qofka ii xulay inaan adeegsado magaca balwaan, maxaa yeelay balwaan macnaheedu waxaa waaye awood. marka waxay aamineen inaan ahay qof awood leh, waana taas sababta ay ugu yeeraan balwaan. And that's exactly the reason why they came up with that. Sunil Shetty, aad baad u mahadsantahay. Fadlan marka hore waxaad inoo sheegtaa waxa aad ka ogtahay waddanka Soomaaliya iyo welibana waxa aad ka aaminsan tahay shacabka Soomaalida ee daawada aflaantaada. Soomaalidu waa dad jecel oo xiiseeya muusikada, shilimooyinka, waana dad faraxsan oo leh waddan qurux badan. dabcan waa qasab oo waa booqan doonaa. aniga oo keliyana maahane waxaa jira aktarro badan oo danaynaya inay booqdaan Soomaaliya. weli ma ku fikirtay inay jiraan dad Soomaali ah oo ku nool Geeska Afrika oo daawada aflaantaada kuwaasoo loo turjumay luqadda afka Soomaaliga? No, I definitely knew that because like I said, whenever I travel and you have dabcan aad baan u ogahay maxaa yeelay mar walba oo aan safro waxaan arkaa dad aad u xiiseeya afleentayda oo wata sawirradayda oo xitaa markay ila hadlaan ii sheegaya inay ka yimaadeen Soomaaliya. marka dadka aan arko oo Soomaaliya ka yimaado waxay ii sheegaan inay yihiin dad Soomaali ah. Soomaalida aad bay u daawataa aflaantaada, waxaana filmadii aan arkay ka mid ah filimka Dadkan Mohra oo aad wada jilaysaan aktarka caanka ah Akshay Kumar. marka ma jiraan wax aflaan ah oo ku saabsan ama ka turjumaya xaaladda waddanka Soomaaliya iyo welibana dalalka la midka? dabcan haddii aan fursad wanaagsan helo waan jili doonaa filim ku saabsan xaaladda Soomaaliya. Soomaaliya waa waddan intiisa badan dabiici ah, haddana dadka ay la daalaadhacayaan nolol maalmeedkooda, balse waa dad niyaddoodu ay degan tahay oo aysan jirin cid la mid ah dunida. marka haddii uu jiro qof doonaya inuu wax ka barto Soomaaliya, waa inuu eegaa dadka iyo niyaddooda wanaagsan. So I think if somebody needs to learn something about the country, it's about the never say die spirit of the people of Somalia. Soomaalida aad bay u daawataa aflaantaada, waxaana filmadii aan arkay ka mid ah filimka Dadkan Mohra oo aad wada jilaysaan aktarka caanka ah Akshay Kumar. marka ma jiraan wax aflaan ah oo ku saabsan ama ka turjumaya xaaladda waddanka Soomaaliya iyo welibana dalalka la midka? Right. Yeah, but the only war-based films that I've done is films that have balse aflaanta ku saabsan dagaalada waxa ay ku saabsan yihiin dalka Hindiya, gaar ahaan arrimaha ku saabsan xuduudda. qof walbana wuu jeclaan lahaa in la soo bandhiga aflaan la xiriirta dagaalada caalamka ka socda iyo weliba dagaalada shacabka Soomaaliyeed ay wajahayaan. marka laga reebo dagaalada, waxaan rumaysanahay inay weli dadka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa faraxsan oo rajo weyn leh. All the issues that are going on, the people are still happy and the people are still hopeful. waan gartay Sunil, marka ma jira film cusub oo soo wado oo jeclaan lahayd inaad la wadaagto dadka Soomaalida ama taageerayaashaada? wuu jiraa. waxaana filayaa inuu soo baxo bisha May ee sanadkani, waxaana la yiraahdaa Reloaded. ugu dambeyntii, marka maxaad jeclaan lahayd inaad u sheegto taageerayaashaada Soomaalida ay ku dhageysanayaan? People of Somalia, I think what anybody would want is to see peace in Somalia. dadka Soomaalidu waxay ila tahay in qof kasto ka mid ah uu doonayo inuu arko Soomaaliya oo nabad ah. qof walba waxa uu doonayaa inuu halkaasi booqdo. shacabka Soomaalida waa dad niyad wanaagsan, waana taasi sababta uu qof kasto u doonayo inuu dalkooda booqdo. waxaan madaxda Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay il gaar ah ku eegaan carruurta iyo waxbarashadooda. waa in diiradda la saaraa waxbarashada carruurta, maxaa yeelay carruurta Soomaaliyeed ayaa ah mustaqbalka dalka Soomaaliya. ugu dambeyntiina, waxaan taageerayaashayda u sheegayaa inaan jeclahay, waxaana rajaynayaa inaan Soomaaliya